ku soo dhawaada 10 moobil ee ugu qaalisan dunida iyo qiimaha kala iibsiga ee ay dunidu ka joogaan. Kaalinta 10aad waxaa ku jira moobilka lagu magacaabo Virtu Signature Diamond. Tani waa nooc ka mid ah moobilada loogu talagalay xaragada ee ay soo saartay shirkadda Virtu oo aad caan uga ah soo saaridda moobilada xaragada. Haddaba moobilkan lagu magacaabo Virtu Signature Diamond wuxuu kaalinta 10aad kaga galay 10 moobil ee dunida ugu qaalisan. Haddaba moobilkan wuxuu ka samaysan yahay birta nooceeda ah loo yaqaan platinum. Sida la sheegay moobilkan samayntiisii waa mid lagu diyaariyey gacan balse aan lagu samayn mishiin. Moobilkan waxaa lagu qurxiyey oo ku sharxan diamond aad u qurux badan oo 200 xabba ah. Hadda qiimaha moobilkan waa $88,000 oo dollarka Mareykanka ah. Kaalinta 9aad waxaa soo galay moobilkan loo yaqaan iPhone Princess Plus. Moobilkan ma lahan wax muuqaal sidaas uu kaga duwan yahay moobilada iPhone-ka ee shirkadda Apple, balse wuxuu ka soo galay kaalinta 9aad 10 moobil ee ugu qaalisan dunida. Moobilkani waxaa qaabeeyey ama nashqadiisa keenay nashqadyahankii reer Australia ee Peter Arizona. Hareeraha moobilkani waa dahab. Haddaba moobilkan waxaa qaas ahaan uu leeyahay wax aan ka yarayn 138 diamondka nooca loo yaqaan Princess Cut Diamond iyo wax aan ka yarayn 180 diamond nooca loo yaqaan Brilliant Cut Diamond. Culeyskeedu dhan yahay 16.50 ilaa iyo 17.70 sida uu sheegay nashqadeeyaha moobilkani Peter Arizona. Diamondka ku jira moobilkani waa midka ugu tayada sareeya, taasina waa midda qaaska uga dhigtay moobilkani inuu ahaado mid qiimo sare ku yeela suuqyada adduunka. Haddaba qiimaha moobilkani waa $176,400 oo dollarka Mareykanka ah. هلا waa codayntii iyo soo jeedintii du'aaladaad iyo soo saaridii iyo habayntii Cabshakuur Cali Aydiid oo idin lahaa idin macaanaad.